waxaa ku tartamay adiga iyo Baasha Maxamed Faarax markii hore wad hambaliyeysay xalayna wad hadasho waxa tiri doorashada waa lagu shubtay sidee ay xujiraan bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland meel joogtaba waa xaqiiq haddaan isku dayo su'aashaada inaan ka jawaabo Soomaalidu waxay tiraahdaa muslimin oo run sheeg muslimin oo uga qaado xildhibaan murashaxa ayaanu ahayn waxaan la baratamayay Baasha Maxamed Faarax tiradii markii la soo koobay gudoomiyihii wuxuu ku dhawaaqay sida aad maqasheen in Cabdiraxmaan Taliilana 38 dooratay Baashana 39 go'aankaasi wuxuu ahaa go'aan gudoon shirkiisaas ku xidhmay waan taaniyaday ninkii la baratamayay ee cod dheerida halka igaga guuleystay sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay arintii waa isbedeshay markiiba golaha dhexdiisa waxa ka dhacday 39 ka adiga lahaa 38 kuna wuxuu ahaa Baasha Maxamed Faarax arinta hal la hubsadaa leeyri erayadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xogaymihiisii dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyay aad iyo aad bay taa uga gilgisheen waxay ugu yiraahdeen ilaa waxaanu qaadan karnaa maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa taa anigu waxaan isleeyahay ku degdegin dabadeed galinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 39 xildhibaan ee ii codeeyay baa goob isugu yimi oo aan nin ka maqnayn 39 kaas waxay qireen inay dhammaantood u codeeyeen Cabdiraxmaan Taliilana nin waliba isagoo diyaara gacantana u taagay magaciisa saddexan xildhibaan walba sheegayo oo uu leeyahay anigoo hebel ah waxaan doorashadii loo baratamayay Speaker of the House of Somaliland codkaygii siiyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed arintani arrin siyaasi maaha waa arrin u baahan sharci nihaayaddeeduna maxkamaday tagaysaa maxkamadda taa wax ka oranaysa anigu haddaan markii hore taaniyeeyay markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimi xildhibaanadaas oo xisbiga wadani oo qura ahayn ee xisbiga kulmiye leh oo labada xisbi qaaran ku jiray ay ka mid yihiin saddexduba shir jaraa'id ayay qabteen taas ay ugu dhalisay inaan anigu xalayto mid waliba markuu yiri xaqaygii la duudsiimayo taas ay ugu dhalisay inaan ka daba keeno arinta iyada xildhibaanadaasi hadii ay ku yimaadeen oo shalay taad siraad la yeelatay 39 xildhibaan maxaa warbaahinta loogu soo bandhigay maanta qaarkood hadlayeen saakadana bay hadlayeen xildhibaan qura ayaa ka maqnaa 38 kale Hargeysa joogay halka xildhibaan oo garyaqaan Cabdiraxmaan ayaa wuxuu ku maqnaa Booramo oo shalayba noqday isaguna halkaas uu baa ka soo diray iyadoo oo muqal iyo muuqaala buu ka soo diray 39 xildhibaan siyaasi ku dhigay mudane xildhibaaneen waxa la sheegayaa markii hore waad golaha markii aad joogtay waad ogolaatay wadigii hambaliyeeyay hadda dad badan waxay leeyihiin mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo ka tirsanaa markii ay sarkeen ayay dabada ka soo riixayaan arinta ka war run ahaantii waaba tii su'aashii u horeysay ee la weydiiyay ma ahayn anigu midaan diiday oo challenge gareynayay gudoonkii golaha waa dhab ninkii la baratamayay waan taaniyaday hase yeeshee cidda i dooratay xildhibaanada i doortay wadani oo qura ma ahayn waxay u dhamaayeen kulmiye wadani labada xisbiba ninaan ku jirin oo saakadan hadlayay oo xildhibaan Xaamud Cismaan Cali labada xisbi midna maaha dadkaas insist gareeyay oo yiri codkayagii halkuu maray inuu ka muuqdaan rabna okay anigu markaa ma challenge gareyn karo markaa ma dacwad baad maxkamadda u gudbinaysaa taasay ku nihaayaddu halkaas ay tagaysaa goorma dacwad u gudbinaysaa saakaba waa la gudbiyay xildhibaan waxa ku hadlaya gudoomiyaha kula guurtay Soomaaliland gudoomiyaha maxaa ka wada hadasheen موضوع لفتسان كوضة هذا وحوي هذا القضية بو أخا سيدا سؤالها هذه مكي ويدين سانو لي محايش بدلي هذا مركي هورتاني يديسي سيدا أنا دين كشاف فيه أيوم بانو قهل لي إساقنا هو شاف فيه